الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. ololihii ka socday maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada ee looga soo horjeeday gumaystaha Israa'iil sidoo kale lagu taageerayay Falastiin iyo Masjid Aqsa wuxuu la kulmay cadaadis ballaaran. shirkadaha Instagram, Facebook, Twitter waxay isku dayeen inay damiyaan iyagoo xidhay boqolaal akoon ah, masaxayna qoraallo, muuqaallo, sidoo kale hashtagyo looga soo horjeeday Israa'iil. meesha ugu badan ee ololuhu ku soo biishubtay kadib markii la xidhay Facebook, Instagram, Twitter wuxuu noqday TikTok iyo YouTube. intaan ogahay TikTok kamuusan hadal wax falcelin ahna muusan muujin, laakiin YouTube waxaa ka jira cadaadis ka khafiifsan kuwa ka jira Facebook, Instagram, Twitter. waxa uu YouTube kusoo gabanayaa xuquuqda u taal website-kooda, waxayna leeyihiin si aan amniga u sugno lama ogola muuqaallo ay ku jiraan rabshado iyo mudaharaadyo. sidaana waxay ku masaxayaan muuqaalka iyagoo ku soo wargelinaya inuu muuqaalka uu ka soo horjeedo siyaasadda YouTube. sida ku dhacday muuqaalkii muuqaalkan ka horeeyey ee aynu shalay soo gelinay, waxaa laygu soo wargeliyey in laga masaxay YouTube wixii u dhexaysay duhur ilaa maqribna wuu xayirnaa. kadib markaan dood ka keenay waa laysoo fasaxay muuqaalkii. cadaadiska u weyn ee maanta haysta gumaystaha ma ahan xukuumado u diyaargaroobay dagaal inay ku qaadaan Yahuud, xoreeyaana masjidka iyo dalka Filistiin ee waa shacabka muslimka ah kaasoo ay ka sheeganayaan Israa'iiliyiintu. waxaa caddayn kugu filan qoraal uu dhigay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu bartiisa Twitter-ka. wuxuu yidhi caqabadaha ugu weyn ee naga hortaagan in aan nabadgelyo la samayno dalalka dariska ma ahan hoggaanka dalalkaas ee waa shacabka ama dadweynaha oo laga dhaadhiciyey lana khaadfaansiiyey waxa ay tahay Israa'iil. hadalka ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale dhaqankii caburinta ahaa ee ay sameeyeen shirkadaha baraha bulshada ayaa ku tusaya sida kelmad ama muuqaal aynu ku baahinay qaybaha kala duwan aynu baraha bulshada ka isticmaalno uga cadhaysiinayo gumaystaha iyo gumaysi kalkaalkaba. maamaha Soomaaliyeedba waxay tidhaahaa qosolkuba hiilo u galaa. xasan aadan samatar allaha u naxariistay waxaa ka mid ah kelmadihiisu ciwaanka uga dhigay gardarro garabog waa Israa'iil. waa boqol yahuudiye rag baa biirinayo baarka u firaayee barqa laguma gaadheen, badda kuma ciyaareen, barbaarta ma laayeen, haddaan muruqa buuxiyo isticmaalku baal jirinoo bayda u garaacayn, bushmaha dushoodiyo been weye nabaduye, baaruud daqiiqdiyo buntuqoyo duniduye, afrika isbuuro issoo bahaysto iska kiciyo gumaystaha. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته. الأرض لنا